munaasabadan ayaa lagu abaalmarinayay kooxda Muqdisho City oo ka kooban kubadda cagta iyo kolayga taas oo ku aadan waxqabadka sanadkan iyo guulihii ay soo hoyeen waxaana ka qayb galay mas'uuliyiin ka socotay maamulka gobolka Banaadir ciyaartooy iyo maamulka naadiga iyo xiriirka kubadda cagta ee dalka Maxamed Cabdi Buule gudoomiyaha shirkadda Kamil oo iyagu soo qaban qaabiyay munaasabada iyo Abuukar Maxamed Sheekh gudoomiyaha Muqdisho City Club ayaa waxay sheegeen in sportska dalka loo baahan yahay in la maalgeliyo si loo taageero dhalinyarada wadankan wuxuu u baahan yahay qaybaha sportska in laga dhiso sababtoo ah dhalinyarada waxay u baahan yihiin wax ay ku madadaalaan laakiin waa inuu sportska noqon mid fadhiida waa inuu noqdaa sports shaqeeyo wax laga qabsado waa inay noqdaa sida shaqooyinka dadka caadiga haystaan meel laga hoodmi kara taana waxay ku dhici kartaa marka kuwiinan ilaahay wax siiyay ay shirkadaha ama dadkiinan meelaha fadhiya isku dayaan inay ilgooni ku fiiriyaan dhalinyarta doonaysa inay wax ka bedelaan jawiga meesha yaala ujeedada sanadkan waxay tahay inaan meesha aan taaganahay aan hore u sii tallaabno oo ah inaan maaragtay insha Allah horyaalka bilaabno oo maanta noo furmay inaan maaragtay ku guuleysano kooxdan ay kaalmaha ugu horeeya horyaalka gasho hadduu ilaahay raali ka noqdo Cabdiqani Saciid Carab gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed ayaa ka codsaday maamulka gobolka Banaadir in ay ka qayb qaataan dhismaha garoonka naadiga ee Muqdisho si ay u helaan adeegyada garoonka ay u baahan yihiin maantay way u sahlan tahay gobolka Banaadir in garoonkaas ay ku soo celiyaan garoon kubadda cagta oo sax ah lagu ciyaari karo ayna ka dhigaan garoon ciyaaraha la ciyaarayo qayb kamid lagu ciyaaro gobolka u sahlan tahay waxaana dareensanahay in fariintan laga dhabeeyo in fariintan xiriirka kubadda cagta aan diyaar u nahay in qaybteena ka qaadano sababta mas'uuliyadda kubadda cagta aan saaray fariinteena fariin siyaasadeed ma ahan fariin hadalkeena aan ku quruxsanayna ma ahan laakiin waa fariin aan ku dhisayno kubadda cagta dalka kuna xoojinayno inay naadiyadu helaan garoomada in la dayactiro gudoomiyaha ururka haweenka ee gobolka Banaadir Jawaahir Barqab iyo gudoomiyaha ku-xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka Banaadir Basma Amr Shaketi ayaa waxay sheegeen in ay ku faraxsan yihiin horumarka uu sameeyo sportska dalka isla markaana ay xoog ay saarayaan dhameystirka waxyaabaha ay u baahan yihiin naadiga waxa sharaf noo ah in ay ciyaartooy ka timid wadamo kale ay noo ciyaarayaan in macallimiin sida macallinka macallin Maxamed ee wadanka Tunisia inuu tababarayaasha ka mid yahay waa guulaha aan ku faani karno MCC hadana aadaan ugu faraxsanahay annagana waxaan diyaar u nahay annagoo isku duwan maamulkeena anoo codkooda ku hadlayo inaan mar walba idin garab taaganahay inaan mar walba garabkiina ahaana inaadan ahaanin dad meel aadan ka tirsanay inaysan jirin gobolka Banaadir ka tirsantiin cid walba idin taageerayso ganacsatada idin taageerayso dadka magaaladan degan idin taageerayo kuwa dibadda ku maqan oo dadkiina idin taageeray inta ku aftirsata magaaladan idin taageeray aad iyo aad idin soo dhaweynaa Axmed Cumar Ibrahim qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho